qodobka ugu dambeeya warka Radio Wadani TV maanta Arbacaha waxa uu noqonayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cali Caadli ayaa waxa uu sameeyay xilka qaadis iyo magacaabis. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cali Caadli ayaa waxa uu wareegto soo saaray xilalka kaga qaaday mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan isagoo magacaabay mas'uuliyiin kale. wareegto ka soo baxday xafiiska wasiir Cali ayaa waxa xilalkii looga qaaday gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda maamulka gobolka Hiiraan Xasan Ibraahim Cabdulle waxaana xilkaasi loo magacaabay Abuukar Cabdullaahi Maaday. sidoo kale waxaa xilkii laga qaaday gudoomiyihii degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan Cabdi Muumin Cilmi Iidow waxaana xilkaasi loo magacaabay Muumin Maxamed Xalane. dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda maamulka gobolka Hiiraan Xasan Ibraahim Cabdulle ayaa ka soo horjeestay xilka qaadista uu ku sameeyay wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cali Caadli isaga oo sheegay inuu yahay gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda gobolka Hiiraan ee sharciga ah. gudoomiyihii degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan oo isagana ka hadlay xilka qaadista lagu sameeyay ayaa soo dhaweeyay waxaana uu mas'uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan ugu baaqay inay ka soo qayb galaan xafladda xil wareejinta. shalay ayay ahayd markii madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle uu shaqo joojin ku sameeyay wasiir dowlihii wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle iyo gudoomiyaha maxkamadda gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Cismaan Barre Maxamed uu ka soo horjeestay isaga oo qabeen xilligan oo doorasho ay ku soo dhowdahay Hirshabelle aysan dhici karin xilka qaadis iyo magacaabis. si kasta waxa ay soo taraya khilaaf ka dhex taagan dowlad goboleedka Hirshabelle si qaasa gobolka Hiiraan ayaa dhex dabaalanaya isqabsi siyaasadeed kaasi oo kasoo bilaabantay kadib markii madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare uu xilka ka qaaday gudoomiyihii gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale isla markaana uu magacaabay Cali Jeete Cismaan. si kastaba waan ay sameeyeen odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ee uu hormuud u yahay Wagaas Xasan Wagaas Khaliif Wagaas Rooble ayaa lagu guuleystay inuu xilka wareejiyo Cali Maxamed Caraale gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan. Yaasiin Cali Axmed daawadaasha qiimaha badan guud ahaan waa inaga intaa warkii waad ka daawanayseen Radio Wadani TV warka waxaa idin la socodsiinay anigoo Yaasiin Cali Axmed lool cidii oo sagan waxay dib kaga daracan karaan baraheena bulshada ee ku sundan magaca Radio Wadani.